qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay wax walba miyuu kaa fiican yihi hadduu aqoonta maadigaa kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu moodhalka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu ama ha xumaado ama ha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhaweyd 11keedii anigoo toronto jooga n t v shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta 80ska maalinta waxa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaas oo 1 milyan gaarsiiyo si uu case-ku u noqon karo case stortingahoodii yani Congress-ka la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yiraahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasay waxaan arkay buu suuq dhaqaale fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho Maraykankan xisaabiyay waa 13 billion dollar baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyay buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiib ah markaa marketkaas aan rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan la inoo sheegaya tirada badan leh nolosha macna kama leh inagunba wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyay waxa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nabi Muhammad mise caruur uu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisoo dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana area la yiraahdaa laba birood dhex geliya soo inta ma intaas nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag hadii la neefeeyo oo dabeetana laba birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxa loogu talagalay in qaabkan la inoo fakarsiyo waxa la yidhi ninka kani caaga la neefeeyay labada birood dhex maayo 40 milyan oo dollar ku qaata $40 million ayuu ku qaataa waxa jira Western Europe dhalinyarada waxa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo
sport and music baa la geliyey qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo waa caalamkan siyaasadani waxan ka bax caalam kale aad adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayeen wax ka sheego ama wacaabayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdaa inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini'aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yarar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxi marka iskuulka isugu timaadaan waxaad tirahdaan xalay yaa badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaana inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtigii yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah marka yaa tusaale ku ah ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كسوا والرميب وحليهي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيي فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني السلوك كودا رقم كودا qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadeysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga daydaba ilaahay ilaahay quraan uu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yiraahdo akhristo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasto uu soo dejiyay rasuul baa la soo raaciyay rasuushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koo waxa la faray inuu yahay wax la samayn karo fi maqduur albashar bini aadamka awoodiisa wax ka mid ah inuu yahay inuu dariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay cidii tilmaami lahayd ولذلك waxaaynu ku celcelinayna leenahay waa inaynu si fiican u daraasayna u garanaa cidaynu ku dayan lahayn cidaynu ku dayanayna waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alle dad abuuray
waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul. nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanayay inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato. qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato. afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma. cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta? waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha. inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan, laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa. haddii iminka laydin yidhaahdo computer science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30 kun 40 kun oo karawne bishii wada computer science baynu gelaynaa. laakiin hadduu marketku isbedelo laydhaahdo saxaafaddaa ka qaalisan, saxaafaddaad u guuraysaa. saxaafadnimadu iyo kombiyuutarnimadu ma ahayn fiicnaanta, laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa. aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysa iyada ugu qaalisan, waayo jannay goysaa. yacni life sbankaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa. wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyadaa ku jirtay, wakhti aad caloosha hooyadaa ku jirtay, wakhti aad dunida korkeeda sarrayd, wakhti aad xabaal ku jirtay, kadibna waad ka soo baxaysaa. waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar. noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa, inta ugu qaalisan bay ka tartaa. hadday tay noloshan aad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta. hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta. daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato, quraanjada cilmi ku saabsan, iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan. waxa kaloo la mid ah cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan. sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila. waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka istiraahdo ku tuko. waxaad sileedahay talow xaggaad ku tukataa? markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaha musqusha agteeda aan ku tukanno, jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno. meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa. sababtu waa maxay? waxan baad la khajilaysaa kula yayliita. waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay, safkii sax aha inaad taagantay, iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin. inaad isu dhigto inaad model noqoto, dadka inta kale ay ku dayato. ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta. waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto. inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person, dhaqan ahaan, aqoon ahaan, waxa la baranayo, wax kastaba inaad adigu tahay the right person. idan kudayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin, inaynan jabin inferiority complex, inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin oo aanad sodhan. xijaabka waxaa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqiska soo siiso. iskuulka markaad tegaysana mid la yara modify gareeyo, dhanna surwaalka yara ah, dhanna funaanad yar ka ah, meelahana aad masar yar ku duubto. waa modification. xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin. sidii ugu wenye u qaado, aragna you are the superior, adaa ugu sarreeya dadka, waayo ariiqii ilaahay jeexay baa taagantay, the right way baa taagantay. miaal basiitan ku siinaya. saxaabadii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen. lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu, ilaa iyo laga gaadhayo China iyo Indonesia iyo waxa la mida. dhulal badanoo dhulalka ka mida kumay furanin dagaal. dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen. waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakarayeen iyo waxay basharka u keeneen.
waxay ku furteenoo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii. rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii bershiya eeraan ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taalla haatan waddankan ciraaq loo yaqaano. waa intaan madaa'inna ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin. waxa ay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan ha la wada hadlee. sacd ibnu waqaas saxaabigii la odhan jiray wuxuu u diray saxaabi la ydhaha ribciy ibnu caamir. ribci waxaa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed. dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi. boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo. dabeetana waxaa la dhigay red kaarbedka wada taqaani soo maaha. madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacase la dhigo sooma taqaaniin ee ay soo dul socdaan. red kaarbetiskaasaa meel walba la dhigay. dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halkaa ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya. ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay, faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baa dee ka muuqda nin dagaalansan. wuu soo socday, waxay yidhaahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig. wuxuu ku yidhi anigu idiinma imanay idinkaa ii yeedhay, hubkayga ma dhigaya anigoo waxayga sita haddaad rabtaan inaan u tago waa u tegaya, haddii kalena waa iska noqonaya. boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo. yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanimaha dad ilaahay aaminsana oo iskhiyaamaynayaan, laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqmaa. saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dambaysiyo, waxma khiyaameeya. haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita, haddii loo baahan yahy waan u tegaya boqorka. waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa. faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red kaarbadka ahaa. boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigu mid ku xidhay bay yidhahdaan culamada taariikh. mid ka mid ah barkimu hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay. dabeetana wuxuu u yimi boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey, maxaa idin soo saaraya? wuxuu ka fakerayaa dadkan ma gaaja waddankoodii ka keentay, ma waxan baa keenay. haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo. maxaa idin soo saaray baa la yidhi. wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey, waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaho aannu u saarno cadaaladda islaamka, inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda. isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha. cidhiidhi adduun buu ka saarayaa, ballaadh buu geynayaa. ninka kani muxuu rumaysan yihi? meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray, brofesorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro. muxuu barayaa? wuxuu barayaa waxyu samaa, warkii alluu sidaa. ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan, waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay. sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa. adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato, inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay. waa wax faal xun. waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaa tahay, waa inaad garataa. adigu muslim baad tahay, kuwa kalena waa gaalo. taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa, iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo, iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah marada aad sidataa ah maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato. adaa ah moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo, iyaguna way qaawan yihiin. waa meel laga naxaabay joogaan.
waa hilib wadhan meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka ah rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyda yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanaya ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanaya ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida model u noqoto inaad hogaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin masaladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee modelka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama combyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka cultureka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adigaa macallin inaad u noqoto lagaaga baahaya waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaa lagaaga baahaya inaad dunida macallin ka noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini'aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamiso dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka waramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo si uu noolan laha ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus
oo xuutadi liqday oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray. haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay, rusul baa ilaahay ka warramaya. nebi daawuud oo jaaluud la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa. yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay. nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay. sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyahy ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobaya oo ilaahay inooga digaya walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq. ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina. cid idinka liidata ha ku dayanina. ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo, waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda. dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoom weegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhima. markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa. laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid, macallinkana been u sheegtid, saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid, kana aad dulmidid, markaa tusaale noqon maysid. tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay. hadday waxbarashatay, hadday dhaqantay, hadday ballan tahay, hadday hadaltay iyo waa run la sheegayo, qof street forward markaad noqoto, qof toos u socda. moodalka la rabee islaamigiina waa kaa. walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun. inaynan bad example ka noqonin diinta. waxaana aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno oo nidhaahna ha soo gelina. waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy. waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo. waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin, inaynan si fiican ba isu fahmin, laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaaga yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay. meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwada sheegaysa warkaaleya ilaahay rumeeya. ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina. tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina, ee waxaa noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga. waxaa noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey. norwijigu saacinkaa maaha, waayo hoy baa laydin siiyey, waxa cuntaanna waa laydin siiyey, waxbarashana waa laydin ogolaaday, intay doontaba ha noqotee. idan waa inaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siinno. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaaya aynu sidnaynana waa inaynu siinaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah.
وين ندتك يوم هذه علينا لكن ما هذه علكم ما هاي إنه إننا برا سيدا سيستم كود اللي بريو سيدا الله حظه سيدا بين الله شيء سيدا وحليشوا إدارية كامها وين إنه أقدم كود هانونين كرنا يجوا ما أنت أقدم كودي ويتاجلأي سيجاري يا خمر يا سوق يا بلية باسي وين سكول كشان هبلاد أما شان ويلو مسلمة أي دجين وين سكول كندقة كيس بدلان وين سكول كان نقدام موديل الله يرحمه مركزي وحلو بهين دتك الجنبية مسلمين تا سكول هذا لقوا بديو الله قيبية وين نقطة ويا موديل سكول كواحترية لكن هذا نقطان أنت مالكو أورتان سكول كشوكتان إنه أقان تكه سيء سكول هذا كله oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinimada ka sii liito meel kasta oo si fool xumaataan marka islaamka aad ceebaynaysaa weey waxa la rabay meesha 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaan noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kan oo kale in la helo iskuulada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahanay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo u toosi karo waxaynu markaa isugu nimi wax weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno ku dayashadaas inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo garataan in ay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa inventionka dadka u keen lahaydeen idinka la idinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinka dadku ku dayan lahaa marka idinka la idin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo adoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaari karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan dariiqa saxa oo tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay ama maanta in badan oo muslimiinta ka mid qaabkay uga dhaqmaan halka kani waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyay oo dhan iyo diinta ay xambaarsanaayeen iyo culture-koodii iyo dhaqankoodii iyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin waxaan ku soo koobayaa markaa dad ba idinkaa u fiican ha jabina uun يعني dad ba idinkaa u fiican intaad muslim tihiin laakiin cuqdadana infan dareera baan ahay iyo kan baan ahay iyo minority baan ahay iyo waa la xaqiraya waa la yasayada ka baxa infan dareeraa tahay muslima baa tahay hogaamiye baa tahay waxyigii samada sida baa tahay qofkii la rabay dadku inuu ku daydo baa tahay daadis waxa la rabaa inay adiga kaa dhaadhacdo haddaanay adigaba kaa dhaadhacsanayn dadkama dhaadhicin kartid laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslima oo kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay kii siday baa tahay then you should be a good example. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كاول مريش كان محاضرة يقين في المسجد إننا أنا وانفع كل واحد باتنا نقلي وقتي صلاة ولا العصر وقتي المحاضرة وصاعد من الدكتور وحن سوق علينا سؤالا أنت اسمعوا على مرة سرعنا إن شاء الله. بس المركب بلغ قادني محمد سؤالي ونيرضوا كل هذا بالغسل أي هذا يكسر درجة. iska wada lagu maqlayaa meel yare waxay leeyihiin saddex su'aalood oo kubadda ku saabsan laba waa isku mid waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckhamki laga sheekeynayo oo kale ma dembi baa ku jira waa tan labaad su'aasha labaad waxay leedahay waa islaayadii waa banoonigii laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga ciyaaraan lafteeda ma dembi baa ku jira waxaa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay ma inaad cayaartaabaa dunida u timi
يعني محاد النوشهاي قفكو هدو قرن وايو وحو النول يهي دن واحد قبطة قرن ميسي الشيخ زنداني اللي عبد المجيد الزنداني حفظه الله يا مال كمد يسوق الله هذا يعني بروفيسور انجليزي وعانه ايوح ويدي ورشو maxay tartaabu ku yiri markaasuu yiri ishu waxan bay qabataa saan bay qabataa wixii buu sharxay human physiology wixii lagu sharxi jiray ama human anatomy ayuu sharxay markaasuu hadana cudwi kale weydii halkan maxay qabataa wadu muxuu taraa kan muxuu taraa markii dambe wuxuu yiri cilmiga kan cilmi alwadhaif al-a'dhaa baa la yiraahdaayo wuu sharxay wax waliba waxan bay qabtaan saan bay taraan wuxuu weydii waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midi waxa uu taro ma shaynimadiisu qiimo ku leeyahay mise jidhku wuxuu taraabaan ku weydiinayaa buu yiri teetana wuxuu yiri hadday kaliya meel taalo waxba faa'iido ma laha buu yiri waxay wax tartahay markay de jidh ku jirto oo jidhkay wuxuu taraysaa ku arkaya waxaan ku weydiiyay buu ku yiri qofka oo dhan markaad jidhkiisa iyo ishiisa iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu tala galay sheegtay ishii wixii loogu tala galay dhigtii sheegtay lugtii sheegtay qofka isku dhan maxaa loogu tala galay iska aamusa wuxuu yidhi taasi waa falsafad wuxuu waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa kabtii buu sharxay wuxuu yidhi waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa saatan baan ugu socdaa caynkan bay qabataa kabtii buu sharxay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad leedahay iminka kabtaada kaa qiimo badanoo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya adigu waxaad tartana cidi garan mayso yani waxa lagu abuuray adiga cidi garan mayso miya kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya yani qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayoo dhan noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa markaa yani waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso wakhti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad caruur tahay waa wax kontaneeyo sana abaad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso kontonkaaga sana ma waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubadda u cayaarto u noolaato kubadda waxaan kuu ogolay inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaara laba ma kala fahmaysaa maalan maamaad ingiriisku maxay odhan jirtay waxa wax loo cunaa maxay in la noolaado laakiin looma noolaado in maxay in wax la cuno socaynka maaha cunadu faa'iiday leedahay waxaad wax u cunaysaa inaad ku noolaato laakiin ka warran qofka u nool inuu wax cuno uun noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uunoo fadhiyo nolol ma haddee taasi waxa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka warran haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubadda erido cayaartu hadday tahay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonti ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo wallahu aclam جزاك الله خير شيخ سؤاله way badan yihiin laakiin waan soo yareynaa laba su'aalood oo isku dhaw waxay leeyihiin qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yiri salaadii iyo meel qofku uu la dhumanaya markii uu tukanayo haddii aan sheekhu isku dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadaydii aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dambi iga soo gaaraya tan labaad oo su'aalo isku dhaw gabadha muslimadda ay dhar ku dhagan inay xirato maxay diintu ka qabtaa salaadaas haddii aan marmar un tukado oo mar kale aan ka tago iyadana maxaa dembi hoon mudanaya salaada iyo muhiimadeeda waxaan u malaynaya in daris ku saabsan uu jiro marka salaada in marmar la tukado in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali maadaama daris salaada uu kaga hadlayo cumuuman waxaad ogsoonataa muslim macnihiisu waa maxay يا قرنا يا مسلم السلامة وهو قان سمي أما ويس ديبي مسلم معناه وحويان كي ليس ديبي كي هو قان سمي إن هذا ليس ديبتي محا عضينا إياه waxaa tidhi ilaahay halka ugu fiican baan ogolay inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo
madaxaad dhulka dhigtaa salaada soo maaha madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yari taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo laakiin salaada waxaad ogoshay halkaa inaad dhulka dhigto it means waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hogaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhaba u hogaansanaada hadi waaxida salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaada waa saxaysaa intaad tukanaysana muslim khayr badan baad laakiin waxaan jeclahay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto mithaal haddii group aad tihiin meel jooga oo macallinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan groupkan muslimiin baanunay meelaan ku tukanno nadiifaanu u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idin ogolaadabay u badan tahay waxaa jira maanta iskuulla la meel lagu tukado ma dowladdaa tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rektarkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meelay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi aalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rektarkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshuu u sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyeen waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhawaystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof qumanoo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedayna sheekha ka warrami doona meesha madowna waa ku asaxaysaa insha allah adiga alla waa ka aqbalaya laakiin waxa aan kaa rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadiso inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yidhi man sanna sunnatan xasana fi lislaam falaa waajru man camila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yidhi qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisiina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkoodoo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseedday in masaajid yar laydsiiya ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiinna hore xoogani haddaa waddada bannaysaan kuwo iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya qaara u taagalaydeen baa imanaya oo markii hore aan qarsan karaynin laakiin markaa meel u sallaxdeen ee u hagaajiseen qaar badanoo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi dee salaadda waaba iska fiicanta waa la ogolaya iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale ee kalaaska kugula jirtee norwijiyadii aan muslimka ahayni inay ku aragta adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragta adoo tukanayaan rabaa inay curiosity-gu qaado ay ku weydiisana maxaad la foorfoorarsanaysa baan rabaa iyadu su-aashu ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo tagsiila ah maraykanka ayaa wuxuu yidhi 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyey buu yidhi tagsiga gudihiisana ana shahaada ugu qabtay buu yidhi 58 qof ayaan tagsiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yidhi dadka wuxuu yidhi airportkan dhigtaa tagsigo marka dadku soo fuulun baan cajlad qur-aana ku ridaa kolay yurub weliba scandinavia waa dad yara xidhxidhan laakiin north america iyo meelahaas waa dad aad isaga furfuran cajlad qur-aanaan geliyaa buu yidhi waxay idhahdaan waxaan fiicana heesayaa muxuu yahay markaasaan idhahdaa buu yidhi waa the last word ka timaada xagga rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yidhi sharaxayga waayo qofkan wuxuu rabuun albaabka cid u furta
si uu ula hadlo uu diin ugula hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa iyo inuu halkaa ka bilaabo uu diidanaa cajiladan u maasaaraa buu yidhi iyaga curious noqdo su-aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahy idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inanta norwijiyadda ku aragto ku tidhahda maxaad samaynaysay aad dabeetana tidhaahdo tan salaad baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiiba waa caynkaasoo aad halkaa uga sharaxdaa baan rabaa saa daraaddeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel mid dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aclam insha allah anagoo waqti ilaalinayna 3 su'aalood ama 4 su'aalood oo isku nooc ah hal su'aal insha allah taala aan kusoo koobayno ayaan kusoo gaabinaynaa su'aalihii marka haddii ay jiraan dad badan oo su'aalo soo qortay laakiin aan maqlin ha ka raalli aadaan waana la daaheen waana soo badiyeen insha allah sheekhow waxaad ka warantaa baa layidhi dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda ammaanahaya islaamkana caayahaya horta farqiga u dhexeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimadda masiix la yidhaahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiixi ciise ah baa looga jeedaa aan sii raacina insha allah waxay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibkay ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun iigu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambaysa oo aan muhiima laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yidhi wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macalimadda ay igu qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ugu dambaabaya allah subxaana watacaala kalaba garan waayo wixii su-aalaya dimuqraatiya waa su-aalo runtii mid waliba deriskeeda isaga baahnayd democracy waa kelmad laba kelmadood oo af griiga ka kooban oo haddii af carabi lagu macneeyo la mid ah xukmu shacab af soomaalina malaa shacab iyo xukumkaba desooda inuu isticmaalnaa xukumkii shacabka ama xukumkii dadweynaha laakiin waxay yidhaahdaan professor muslim oo la yidhaahdo jacfar idriis ayaa wuxuu yidhaahdaa waa ereyga keliya ee magacii aan xaqiiqo lahayn buu yidhaahdaa yacni waa magac aan xaqiiqo lahayn waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhammi wax xukumo ma jiro calaa kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasiya siduu hadda u yaallo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro 3 suldadood ama 3 maamul ee ah suldada qadaaga ama judiciaryga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan suldada tashriica waxa u yaqaanin ama parliamentarianku uu gaar noqdo iyo sultada dowladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxay la noocay ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaallo waxay yidhahdaan dimuqraadiyaddu 3 qaybood baa loo qaybiyaa midi dunida kama jirto oo waa tii erayga dhabta ahaa uu sheegayay oo aan shacabku wax xukumo athenis baa ugu dambaysay bay yidhaahdaan xataa athenis markay ka jirtay bay yidhaahdaan may ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka oo dhan looma wada ogolayn dumarku kuma jiri jirin caruurtu kuma jirin addoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yaroo kooban oo filosofara iyo in dadoo la socotay kaa marka la soo dhaafo labada nooce kale ay leeday waa nooc la yidhaahdo nidaam iljamciyaat hal dowlo oo qura dunida kaga dhaqanta switzerland waddanka la yidhaahda weeyaan waa 3 suldadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxuu dhammiba koox qura ku soo ururta deetana nidaam iljamciyaat nidaam la yidhaahdo uu si kala daadagaa qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano parliamentarianka oo iyana 2 qaybood u qaybsanta qayb parliamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa
wanaag iyo sama ma yaqaano coddheeri buu yaqaanaa waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu coddheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu coddheeri haysanin waa xaaraam ereygaa ma fahmi karaysaa maalan khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool maya laakiin coddheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homofilku cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu coddheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaartii tiro badatay ee wax waliba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo coddheeridayaa leh dabeetana ciddii 51% heshaan inay meesha maamusho islaamnimadu kaaway ka gedisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhaahdo 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaab wa sunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybood oo kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa calaa kulli xaal ciisa almasiixina waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kalaynu isweydiin ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna daad ka guuri karto ka guur daad ku qasbantayna kursigaaga durugso wallahu aclam